السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونيجو ولكن بشك بشير إذا الله لقوا سود بهذا يوتيوب channel كيجا هدي أتاي مركي كورة سنصب وقطع حاسي شرف لك عسنا إنك كنا لك سبسكرايب باع كسيسيد فيديو لايك جري هذا وما ستاي صد عبان كسو أركتين وحرم أنا كل بدأ أقول سديت فائدة أولية هاي عبيتان كابيجكا ها كابيجكا لما أنتين واو تقانان خضار حجم وين فائدة بدنا له هل ميد مكبحة ودن كيني سوماليا طبعا waa laga yaabaa in la keeno haddii aad ogtahay inuu ka baxo qaybta commentiga nagula wadaag amaba si daily ah loogu helo suuqyada magaalada faa'iidada koobaad cabbage-ka wuxuu hagaajiyaa maskaxda maskaxda ma leedahay xasuus ama ilowsho isticmaal cabbage-ka cabbage-ka qaab badan ayaad u samaysan kartaa muuqaalkan qaybta dambe ayaan ku tusi doonaa qaabka loogu samaysto cabitaan sharaab ahaan sidii aad u isticmaali lahayd laakiin qaab badan oo loo isticmaalo ayaa jirta in aad jarjaratid subaxii quraacda aad quraacanaysid beedka cabbage-ka iyo beed waad ku shiilan kartaa waad ku quraacan kartaa mid kale cabitaan ahaan ayaad u shiidan kartaa sida loo shiitiyo waxa lagu daraayo qaybta dambe muuqaalkan ayaan kugu sheegi doonaa faa'iidada koowaad wuxuu hagaajiyaa maskaxda haddii aad lahayd ilowsho iyo xasuustaada iyo weliba ay kugu adkayd akhriska cabbage-ka isticmaal maskaxdaada firfircooni ku siinaa maskaxdaana waxay diyaar u tahay wax walba loo dhiibo in ay qabato faa'iidada labaad cabbage-ka wuxuu ka hortagaa kansarka ku dhaca caloosha ulcer haddii aad taqaanaan waxaa jiro mararka qaar ama laga yaabo qof daawanaya muuqaalkan ama dadka basay u badan yihiin in uu marar badan kaaga soo baxo fin afkan fin ma aha dhinac dilaacay guduhu kaaga soo baxaya adoo jiifo waana aad u xanuun badan ulcer la yiraahdaa marka isbuuc markuu ku hayo kadib asiga ayaa iska fiicnaanaya xanuun baabiin baa qaadan kartaa marka waxaa la yiraahdaa ulcer af boogeed marka waa fin gaduudan afka guduhu ku wataa marka si dambaysa uu sii balaaranaa laakiin markuu baabao asiga uu gaduudanaya kadib uu iska fiicnaanaya asaga toddobaad kadib uu iska fiicnaanaya waxaa keena waa ulcer waa gaaska ku dhaca caloosha mararka qaar dad qaar finka had afkaaga soo baxay dadka qaar wuxuu ku soo baxaa caloosha marka cabbage-ka haddii aad isticmaashid wuu ku daayay ulcer-ka aad ugu fiican yahay especially weliba dadka gaaska qaba marka la isku barbar dhigay daawada gaaska iyo cabbage-ka ayaa 3% dheeraaday tiro aad u badan ma aha laakiin cabbage-ka halkii aad daawooyinka oo ama barazolka iyo cabbage-ka marka la isku fiiriyo cabbage-ka ayaa aad u sareeya marka isticmaal waa dabiici waa geed effectna ma laha daawooyinka markii aad muddo isticmaashid gaaskii way kaa bi'inayaan laakiin laga yaabo effect inay kugu leedahay laakiin cabbage-kan waa khudaar effect ma lahan ma ku dhibay gaas mar walba daawo isla daba taagan tahay isticmaal cabitaanka cabbage-ka cabitaana ka samaysanaya kiligiisa waa shiidanaysaa insha Allah waxaan rajaynayaa inuu gaaska dhan kaa qaado midda saddexaad dhimista miisaanka cabbage-ka haddii aad isticmaashid miisaankaaga hoos ayuu dhigayaa waa haddii aad rabtid in aad miisaanka iska ridid ayadana aad ku saacidayaa isticmaal haddii aad ku jirtid miisaan dhimis midda afraad nidaaminta dhiigga cabbage-ka wuxuu nidaamiyaa cadaadiska dhiigga midda shanaad wuxuu kor u qaadaa difaaca jirka CD4 mar walba hadduu difaaca jirkaaga adag yahayna waxaa adkaanaysa in cudurrada yaryariiska ama viruska yaryariiska ay kugu dhacaan dad waxaa jira mar walbaba hergab ayaa ku dhaca badanaa hadduu difaaca jirkaaga adag yahay hergebka muddo dheer ayuu kaa maqnaadaa laakiin dad waxaa arkaya bishii labadii bilba jiiral uu soo galaa hergaba ku dhaca marka waxaa muhiim ah difaaca jirkaaga inaad adkaysid isticmaal cabbage-ka si difaaca jirkaaga u adkaado intaan kula wadaagin saddexda faa'iido dhiman see u aragtaa haddii aan si practical ah kuu tuso qaabka loo samaysto cabitaanka cabbage-ka iyo waxyaabaha lagu dardaraayo marka namari markuu horeys waxaa u baahan tahay makiinada wax lagu shiido kadib saa aragtaa xaggan waxaa soo jartay cabbage cabbage saa ogtihiin aad u weyn yahay wuuna culus yahay marka jabkan ayaa kasoo jartay weliba
si fiican waa inaa usoo dhaqdaa si akana so waxaa sameynaysaa almost intaan hadda way badan tahay qaybtan askreba qaybtan waa cabbage-kii saad ogtahay cabbage wax lagu yaqaana salad ma salada saan u egaa jirto oo weliba sida cabbage-ka u wareegsan laakiin waxaa loo baahan yahay salada ma aha ee waa cabbage si sidoo kale cabbage-ka waxaa jirta laba nooc mid يعني purple color يعني u dhow casaan xigeen ah iyo midkan cagaarka labadaba midkii aad helaysid waad isticmaali kartaa weliba dabcan waxaa aad loo helaa midkan cagaaran isticmaal okay kiinida ku ridee hal mid sidan waad ku shiidan kartaa si macdanta wax walba sidiisi aad ku cabtid dadka qaar waxay sameeyaan way kariyaan kadib aa la shiidaa inta xoogoo biyo lagu kariyo laakiin sidan qaabkii aad jeceshahay adiga kuu fudud waad samayn kartaa sidoo kale waxaan ku dareynaa xabad kaarood ah kaarood aaday wanaagsan tahay sidoo kale kaarood iyo cabbage keligiisa waad shiidan kartaa laakiin kaarood aa ku dareynaa markaasaan isugu dartid waxaa u baahan tahay koob haafa biyo ah kadib waa isku shiide bismillah waa diyaar بسم الله اتجابينو يعني ددن هدي اي نقطه ددن لا شيء كرملا واو شيء اسكا سكرنا ملهن يعني waa shay biyo wax biyo kala aad cabay sidoo kale kaaroodka kala hadda marka laakiin macaan oo meel dheer ah ku dhadhamayo sidoo kale saad aragtaan qolofta iyo kama miirin mar walba fiber-ka wuxuu ku jiraa qolofta iyo qashinka waa wax ugu muhiimsan macdanta lagu sheegayo waa kuwaas dadka qaar cabitaan ay shiidanayaan shaamiir ay u dhigayaan biyihii cabayaan I know yara dhib badan tahay laakiin macdanta fitamiinka iyo mineralka wuxuu ku jiraa qoloftaas okay marka ha tuurin sidiisa adoon waxba ka qaadin sidiisa ku cab marka soo aragtay qaabka loo sameesto cabitaanka aan mar walba waxaan jeclahay shayga aan sharxaayo aan rabo inaan dadka la wadaago si theory ahaan inaan ugu sheego practicalna aan ugu sheego waa qaabka aniga wax u soo bartay jaamacadeyda mar walba theory ahaan u qaadanaa shayga marka qaadana si practical ahaanna waa naloo tusaa waxa garan kara dadka caafimaadka soo bartay so waad aragtay qaabka loo sameysanayo carrot iyo cabbage kaliya faa'iidada lixaad uu leeyahay wuxuu u fiican yahay aragga ha cabbage wuxuu u fiican yahay aragga weli markaa ku dartid carrot-ka aan wada ognahay inay indhaha u fiican tahay araggaaga ay ku zaadinaya marka waad ku darsan kartaa carrot sidoo kale ma idinku jiraa qof mar wax ka cunay KFC kambaniga KFC ama digaaga KFC wadankii in laga helayo ma sheegi karo laakiin muhiimadda soo qaadanaya ma KFC-da iyo hadaa cuntay iyo waxaas ma laakiin muhiimadda aan kale waxay tahay KFC hadii aad mar wax ka cuntay waxaad arkaysaa saladkooda ay isticmaalaan qudaarta yani waxa la jeedaa cabbage iyo carrot bes caageedu ku jira wax walba dalba hadii aad KFC family dalbatid KFC sandwich whatever waxay ku siinayaan cabbage jaris iyo la isku daray carrot la isku jarjaray cabbage-ka sidiisa waay ha marka cabbage-ka faa'iido aad u weyn ayuu leeyahay badanaa kuma arkaysid cuntooyinka kale ee la isticmaalo KFC-da waad ku arkaysaa KFC-da waa fast food ani KFC way fiicanta kuma dhahay laakiin waxa kaliya ay ku wanaagsan yihiin cabitaan iska daa horta
cabitaanka waxay isticmaalaan oo acidka ma wanaagsan laakiin waxa kaliya wanaagsan aan ku arkay ee isticmaalaan aan xasuusto waa cabbage iyo carrot isku yareeyay ayaad cunaysaa aad u wanaagsan haddii KFC-na mar booqatid isku day waadna arki doontaa so faa'iido toddobaad uu leeyahay cabbage-ka wuxuu kor u qaadaa caafimaadka maqaarka dadka ku dhiban wejigooda in uu laalaab galay amaba finan ma rabtaa bashariyadaada ama jirkaaga inuu kuu qurux badnaado clean uu ku ahaado isticmaal cabbage-ka maqaarka ayuu u fiican yahay haddii aad cabbage badan isticmaashid 2 toddobaad kaliya maqaarkaaga jirkaaga u isbedelay adiga waxaa noqonaysaa qof jirkiisa uu nadiif noqday oo soo aftiimayo marka isticmaal cabbage-ka sidoo kale wax badan ha ka isticmaalin xadid yar aa shiidaya intaa arkaysa oo kale koobkan maalintii waa kaa badanya ma la rabo inaad ziyaada isticmaashid koobkan subaxii waad isticmaali kartaa habeenkii xilliga aad jeceshahay xilli u go-an ma jirto faa'iidada sideedaad ee u dambeysa aan kusoo gabagabeynaya uu leeyahay cabbage waa wuxuu u fiican yahay dheefshiidka alsarka haddaysan idin sheegay gaaska qofku wuxuu ku dhacaa marka dheefshiidkiisa uusan wanaagsaneyn caloosha wuxuu u wanaagsan yahay cabbage-ka haddii caloosha dheefshiidkaaga uusan wanaagsaneyn waxaad isticmaalaysaa cabbage-ka aad ayuu ugu fiican yahay dheefshiidka faa'iido kale aan ilooba ayaa jirta cabbage-ka wuxuu u fiican yahay lafaha marka faa'iidooyinka laga helo cabbage-ka aad ayay u badan tahay dad waxaa jira Greek dadkii hore way isku daaweyn jireen daawo ahaan ay u isticmaali jireen marka anaga waxa laga yaabaa hadda in aananba isticmaalin qudaarta faa'iidada ay leedahay maba naqaano horta wadankeena haddii ay ka baxdo isku day haddii aad family leedahay maalintii aad magaalada ku aragto inaad hore u soo iibsatid dabcan wuu weyn yahay haddii aad soo iibsatid fridge aad gashan kartaa maalinba xadid ayaad ka isticmaali kartaa mar waxaad ku darsan kartaa suugada mar waxaad ku karsan kartaa beed intaad ku shiilato waad ku isticmaali kartaa mar cabitaan ahaanad u cabaysaa sidoo kale adiga daawanaya haddii aad taqaanin faa'iidooyin badan uu leeyahay ama haddaad hore u isticmaashid qaybta commentiga nagula wadaag si aan kaaga faa'iidaysano marka waxaa jeclaysaa inaan kula wadaago faa'iidada uu leeyahay cabbage-ka maanta laga bilaabo isku day inaad isticmaashid waa kuu muhiim waana raqiis wuxuu ka mid yahay qudaarta aadka raqiiska oo laakiin aanan ku baraarugsaneen dadkeena haddii aad ka heshay muuqaalkan ha iloobay inaad la sii sheergarayso walaalaha kale ee khayrka jecel si aad ajar ugu heshid sidoo kale haddii aad tahay markii kugu horeysa aad soo booqato kanaalkeena kusoo biir tiimkan quruxda badan jecel mar walba inay soo gudbiyaan waxyaabo bulshada faa'iido leh intaan kulmi doono muuqaalka xiga waxay idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu peace and love nabadaa ka shaqeyn salaam